بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا معهد كأجر سوماليا oo ah معهد online diplomada baxsha waxaan rabnaa caawa inaan isla fiirino chapterka u horeeya ee maadada strategic management oo aan ugu talagalnay in ardada aan ugu fududeyno ardada soo cabasho badankood ay ka qabaan. Chapterka u horeeya waxa la yiraahdaa introduction to human resource management. Introduction to strategic management. waxa lagu barto waxay tahay xeelada istaraatiijiyada waxa la yiraahdaa xeelad istaraatiijiyada waxay ka timi markii ugu horeysay horta militariga oo ciidamada militariga waxay isticmaalaan qaababka istaraatiijiyada loo sameeyo marka ugu horeysa istaraatiijiyada waxay ka timi militariga waxaana loo adeegsan jiray in drafting plan of war in dagaal la rabo in la qaado in lagu soo qorsheeyo waxaana lagu eegi jiray dagaalada soo socda sideen u galnaa iyo xagga military ahaan sideen u adkaan karnaa. waxa sidoo kale lagu eegi jiray strategic managementiga dagaalka markaan joogno decision noocaya baan qaadanaa. marka waxa ugu weyn istaraatiijiyada ay ka hadasho waxa weeye arrimaha waagi hore ahaan jirtay in laga hadla arrimaha dagaalka oo militariga ay isticmaali jireen. istaraatiijiyada marka eegto waxyaalaha ay ka hadlayso tusaale saddexdan qodob hadaan eegno strategic goals states what is to be achieved maxaa la rabaa in la qabto. waxa ugu horeeya ay ka hadlayso hadafyada ay xaqiijinayso xeelada waxay tahay maxaan rabnaa inaan qabano maxaan rabnaa inaan gaarno halkeen rabnaa inaan gaarno aan weyn goormaan rabnaa inaan gaarno. goaliska marka waxa la rabaa inay cadeeyaan waxa la rabaa in la qabto iyo xilliga la rabaa in la gaaro. waxa jira wax la yiraahdo strategic policy ama siyaasadda xeelada shirkadaha ama dalalka ay ku dhaqaan. tusaalahan istaraatiijiyada xeelada ay ku leedahay policy siyaasadda ay ku leedahay xeelada waxay dejisaa guidelines qaabka aad u shaqeyn lahayd. waxay sidoo kaleeto ay xadidaa limits for the action shaqooyinka la rabo in la qabto si loo gaaro goalskii aan kor ku soo sheegnay ee ahaa maxaan ku raadsaday sidee wax loo qabtaa. yacni tusaalahan waxaad rabtaa inaad gaarto magaalo kaleetaad rabtaa business inaad ka furto. strategic goalskaaga waxay tahay waxaan rabaa inaan gaaro magaalo kaleeto si aan uga furo dukaankeyga. goormaa marka la rabaa in laga furo waxaa la rabaa xilliga noocaas in laga furo. marka waxay noqonaysaa achieved iyo when maxaa la rabaa in la qabto iyo goormaa la rabaa in la qabto. taasi waa goalska. policy-gan waxay tahay waxay ku siinaysaa guidelines qaabkii aad u gaari lahayd meesha aad rabtid inaad gaartid. waxa inta ka dambeeya marka waxay tahay in programkii la sameeyo. programka strategic program ama xeelada programka ay leedahay waxay tahay in la dejiyo step by step actionka la qaadi karo si loo hubiyo objectiveska waaweyn ama hadafka aan lahayn kuwa ugu waaweyn si loo xaqiijiyo. hadafkaas oo suurto gelinaya in aan gaarno wixii aan rabnay kuna gaarno xilligii aan rabnay inaan gaarno. haddii definitionka istaraatiijiyada lagu weydiiyo ama what's strategy lagu yiraahdo waxaad ku jawaabi kartaa istaraatiijiyada ama xeelada waa is the direction and scope of an organization over the long term ideally which matches its resources to its changing environment. istaraatiijiyada ama xeeladu waa jiho in la jiheeyo sidoo kaleeto in diiradda la saaro oo ay diiradda wax saarto organizationka companygaas inuu diiradda wax saaro xilliga uu saarayo oo uu diiradda saarayo ama directionkaas uu qaadanayna waxay tahay over the long term xilli dheer 5 sano 8 sano 10 sano 25 sano. sidoo kaleeto waxaa la rabaa istaraatiijiyada waxa weeye waxa isu keeni kara resourceska waxa shirkadda ay haysato matchska waa isu keenid waxay isu keeni kartaa resourcega iyo changing environmentiga deegaanka hadda aanu ku jirno isbedbedelkiisa iyo ganacsigaaga deegaanku ku jir isbedbedelkiisa iyo wuxuu isu keenayaa waxa aad haysatid. isbedbedelkan sheegayna waxay tahay
tusaale ahaan suuqa kale marketka waxa isbedeli kara waxay tahay consumerska waxa isbedeli kara waxay tahay clientiga oo ah dadka adiga aad la shaqeyso adiga aad gaarsiiso maxaan ku yiraahdaa ii sheeg adeegaaga si aad u gaarto expectationkii dadka yani stakeholderska waxa la yiraahdaa cid walba oo companygaaga maxaan ku yiraahdaa stakeholder ka ah maxaan ku yiraahdaa tusaalahan bulshada oo kaleeto waxa stakeholder ka ah arrimaha maxaan ku dhahaa governmentiga oo kaleeto waxa stakeholder ka ah dhammaan sideeba expectation sidoo kale shareholderska iyagana gooni baa la rabaa expectationkooda in loo bahalkeeyo istaraatiijiyadda waa action a company takes to attain superior performance waa hab waa ficil ay qaadato companyga uu qaato si uu u adkaysto booskiisii ahaa booska ugu wanaagsan xagga shaqada superior performance xagga shaqada companyga ugu wanaagsan si uu u adkaysto baa la rabaa in markaas la rabaa istaraatiijiyad inuu samaysto strategic managementiga waa set of managerial decisions waa go'aamo maamul oo isdaba yaal qofka uu samaysto iyo actions iyo managerial actions go'aamo iyo ficilo yani go'aanka markii la qaato ficil maamul baa la rabaa in la sameeyo taasoo determines the long run performance of corporation waxaa la rabaa go'aamadaas iyo actionska ay qaadanayaan maamulka oo si qaab maamul ay u qaadanayaan waxaa la rabaa in ay ka muuqato performancega ama long run performance shirkadda socodkeeda inuu ka muuqdo waxyaalaha ugu waaweyn ee istaraatiijiyadda lagu arko waxaa ka mid ah internal and external environment scanning waxaa ka mid ah strategy formulation internal and external environmentiga waxaa weeye xagga gudaha waxaan ku arkaynaa SWOT analysiska afar buu ahaa SWOT buu ahaa SW waxay ahayd strengths and weaknesses O wuxuu ahaa opportunities T-dana waxay ahayd threats marka labana waa internal labana waa external environmentigaasa la eegaya scanning halkan waxay ugu jirtaa in la qiimeeyo istaraatiijiyadda marka la sameynaya istaraatiijiyadda waa la hirgelinaya oo waa strategic implementation hirgelin evaluation and control istaraatiijiyaddii markii la hirgeliyo kadib waa la qiimeynaya markaasaa haddana lagu controlayo shaqaalihii benefitska maxaa ka faa'iidanaa istaraatiijiyadda lacag badan iyo shaqaalo badan iyo kharash badan baa nooga baxaya strategic managementiga markaan shirkadda u sameyno xeelad maamul shirkadda markaan usoo dejino waxaan ka helaynaa kow inaan aragno maxaan ku yirahdaa ii sheeg visionkeena yacni clearer sense dareen cad baan ka qaadanaynaa oo sheegaya visionka aragtida fog ee companyga waa maxay waxaa kaleeto oo improved understanding of rapid changes environment waxaa aad u fahmi karnaa isbedelada ku dhacaya environmentiga deegaanka anaga companygeena ku xiran improved organizational performance waxaa hore u kacaya ama horumar sameynaya shaqadii companyga achieves a match between the organization's environment and its strategy waxaa uu gaarayaa inuu isu keeno environmentigii deegaanka uu joogay iyo xeeladii companyga iyo qaabkii companyga structureka companyga u dhisnaa iyo processkii uu ku shaqeynaya intaba way isu keenaysaa markaasi waxay ka dhigaysaa awood bay ka dhigaysaa waxay khusaysaa many of the decision made by managers companyga markii uu managerskiisa ugu sarreeya ay joogaan oo shaqadan ay ku jiraan waxaa la rabaa strategic management inay keenaan waxay sidoo kale caawisaa it helps to highlight in ay caddayso the need for innovation isbedela haddii loo baahan yahay hal abuuro cusub haddii loo baahan yahay waxayna encourage garaysaa oo ay kor u qaadaa haddii ay yimaadaan idea cusub taasoo ku xiran istaraatiijiyadda wax ka bedelidda companyga iyo xeeladda guud ee companyga basic elements ka aan eegayna waa tii hore aan usoo sheegnay waa afar keliya waa inaan environmentiga internal external aan eegno waa inaan strategic formulation istaraatiijiyadii soo dhirino waa inaan implementation sameyno hirgelino istaraatiijiyadii xeeladii aan sameynay waa inaan strategic evaluation sameyno oo qiimeyn ku sameyno istaraatiijiyada markaa hirgelino kadib waa inaan markaa strategic control sameyno oo aan control yani dabagal ku sameyno istaraatiijiyadii
aan sameynay qodob baan marka u eegaynaa environment scanning waxa laga wado waxay tahay waa monitoring evaluation in la eego oo kor laga fiiriyo monitoring daba socosho kor ka eegis evaluating qiimeyn waxa la qiimeynayaa maxaan ku iraahdaa ii sheeg shaqada socota sidoo kaleeto disseminating of information in xogta la faafiyo yani xogtii waxa la faafinaya maxaan ku iraahdaa ii sheeg environmentiga waxaana lagu faafinaya laga soo aruurinaya external and internal environment to keep people waxaana soo aruurinaya waxay tahay dad loo xulay kuwaasoo ku jira within the organization companyga dhexdiisa ku jira dadkaasa soo aruurinaya xogta loo baahan yahay strategic formulationka waxa weeye markii istaraatiijiyadii la ogaaday waxaan u baahanahay la eegay markaasa marka la soo dhirandhirinay strategic formulation waxa laga wadaa development of long range plans for the effective management of environment opportunities waxa la rabo waxay tahay in la soo dhiraandhiriyo oo la soo sameeyo qorshe fog kaasoo effect gareynaya deegaanka fursadaha ay ka jiraan fursadaha deegaanka sidoo kaleeto waxay diiradda saaraysaa qorshahaas threats haddii caqabada ay jiraan in the light of organization strengthka iyo weaknesses kiisa markii companyga loo eego yacni companyga awoodihiisa iyo daciifnimada companyga haysa markii loo eego formulation of strategy waxay xoogga saaraysaa in la eego baahiyada suuqa ka jiro opportunity noo ah iyo caqabadaha suuqa ka jiro threats noo ah bay eegaysaa mission iyo vision iyo objectiveska missionka waxaa laga wadaa why companygaagu u taagan yahay marka aragtid inaad mission qortid insha Allah missionno waxaan casharka kusoo diri doonaa qaababka missionada loo sameeyo si gooniya missionka waxaa la yiraahdaa tusaale ahaan inaad sameyso why companygaagu u jiraa yani sabab buu companygaaga u jiraa waa inaad marka cadaysaa ujeedo aad tiraahdaa companygaaga wuxuu u jiraa inuu caawiyo dadka gaajaysan oo kale inuu caawiyo dadka u baahan caawinaada visionka waxay tahay xagee baad rabtaa companygaaga inuu gaaro maxaad rabtaa companygaaga inuu noqdo waxaad dhigi kartaa companygaaga waxaan rabaa inuu noqdo company caan ku noqda caawinta dadka ama companyga ugu fiican ee dadka caawiya objectiveska maxay tahay waa the end results of planned activities maxaad rabtaa hadafkeed rabtaa inaad ka gaartid yani ujeedka aad ka gaari doontid mustaqbalka waa maxay markii aad sameyso companygaaga strategic implementation marka hirgeliso waxa laga rabaa in saddex waxyaalood ay daba socdaan strategic implementation is the process waa habka by which strategy and policy waa sida ugu haboon ee xeelada iyo siyaasadda are put into action loo hirgeliyo through the development of iyadoo la horumarinayo programka istaraatiijiyadda ahaa in maxaan ku raahdaa ii sheeg hirgelin lagu sameeyo iyo qaabka u hirgelin lahayd budgetkii ku bixi lahaa procedureski iyo dariiqyadii iyo habraacyadii loo mari lahaa procedure waa habraac marka habraacyadii loo mari lahaa baa sheegaysaa evaluation and control oo ah midda u dambeysa waxaa la rabaa markaa hirgelisay kadib inaad qiimeyn ku samaysid adeegii waxaan leeyahay istaraatiijiyadii aad soo hirgelisay ma tahay istaraatiijiyad socon karta ma tahay istaraatiijiyad shaqeynaysa ma tahay istaraatiijiyad macquul waxaa marka eegaysaa istaraatiijiyadda aad soo dejisay evaluation qiimeyn baa ku sameynaysaa macquul ma ku tahay companygaaga in istaraatiijiyad noocan ay usoo degto haddii ay macquul ku tahay iyo haddayna macquul ku ahaynba waxaa la rabaa processka intaa ku jirta inaad ku control garaysid dadka inay shaqada qabtaan istaraatiijiyadaas qabtaan evaluation and control is the process waa habka ilaalinta iyo dabagalka iyo eegista in which corporate activities wax kasta oo shaqadii ahayd oo istaraatiijiyad ku saabsanayd sidee bay u socotaa aan iyo performancega maxaa yani performancega af Soomaali ahaan waxaa la yiraahdaa howl qabasho maxaa la qabtay waa la monitor gareynaya maxaa la qabtay istaraatiijiyadii sidee loo hirgeliyay iyo sidee bay u socotay oo shaqadii loogu qabtay markaasaa waxaa la isku compare gareynayaa si loo qiimeeyo
actual performance haddeer shaqada xagee baan maraynaa waxaan ku compare gareynaynaa oo barbar dhigaynaa decided performance oo ah maxaa la rabay in istaraatiijiyadan keento waxa la rabay istaraatiijiyada inay keento baa la barbar dhigaya performance-ga lagu sheegay waxay tahay the end result of organizational activity shaqada waxa ugu dambe yani maxaa ka soo baxay shaqo la qabtay howlqabadka feedback ama learning process-ka waxa laga wada waxay tahay in la helo dabagal revise in la sameeyo dib u eegid ama correct decisions based on performance waxa la eegayo waxay tahay maxaa la qabtay wixii la qabtaa la fiirinayo markaa saxitaanka lagu sixi doono waxa la yiraahdaa learning process strategic management process-ka waxaan eegaynaa habka istaraatiijiyada loo sameeyo waxaan eegaynaa kaliya 5 qaybood marka ugu horeyso identifying the organizational current mission objectives and other strategies waxaa la rabaa inaad qeexdo organizationka haddeer aad gacanta ku hayso maxay tahay ujeedka loo sameeyay maxaa la rabaa inay ka soo baxdo mustaqbalka haddii uu shaqeeyo stepka labaad waxay tahay environmentiga analyze garaynayna deegaankan ku naal baan qiimeynaynaa stepka saddexaad waxay tahay internal analysis awoodaha aan leenahay fiirinayna maxaan awoodnaa maxaan qaban karnaa maxaan sameyn karnaa stepka afraad wuxuu yahay istaraatiijiyada aan sameynayna formulating strategy waxaan soo dhirinaynaa oo sameynaynaa waxay tahay istaraatiijiyadii stepka u dambeeyo shanaad waxay tahay istaraatiijiyadii la sameeyay markii la hirgeliyo waa evaluate results lagu sameynayo markii la hirgeliyo kadib istaraatiijiyadii sidee bay u shaqeysay istaraatiijiyadaha waxay u kala baxaan 3 qaybood kaliya inta badan 3 qaybood bay u kala baxaan kuwa ganacsiga midda ugu horeysa waxa la yiraahdaa corporate strategy oo kambaniyasha aadka u waaweyn baa loogu talagalay inay sameystaan midda ku xigta waxay tahay business strategy kambaniyasha yaryarka ah bay badanaa ku fiican tahay laakiin haddana kambaniyasha competitive-kooda uu very strong yahay bay ku fiican tahay waxaa sidoo kale la sameeyaa functional strategy ama howlqabasho yani shaqada waxaa loo sameeyaa xeelad shaqada loogu qabto marka taas waxaa la yiraahdaa functional strategy corporate strategy waxaa la yiraahdaa organizational strategy istaraatiijiyad ama xeelad ay leedahay shirkadda oo dhan waxaana lagu ogaadaa what business a company is in company-geena yani business nooceeya buu ku jiraa should be in la rabay inuu ku jiro or wants to be in ama dadka ay u baahnaayeen inuu ku jiro yani waxa la eegayo waxay tahay company-gan muxuu ku jiraa shaqadee buu ku jiraa shaqadee bay ahayd inuu ku jiro shaqadee baan rabnay inuu ku jiro and what it's wanted to do maxaa la rabay inuu ka qabto with those businesses ganacsigaas aan rabnay in uu ku jiro maxaa la rabay inuu ka fuliyo sidee baa la rabay inuu xilliga u shaqeeyo intaasaan ku eegana business strategy waxay tahay organizational strategy aan sameynayna way waxaana aad u xoog u saareynaa competitive-ka sidee baan uga takhalusi karnaa company kaleeto oo annaga cadow nagu ah baan xooga saareynaa functional strategy waxay tahay shaqada aan rabno inaan qabano yani now shaqada aan qabanayno oo aan rabno inaan kaga adkaano cid kaleeto ama departmentska shaqooyinka ay qabtaan istaraatiijiyad gooniya inaan u sameyno taasaa waxay marka noqotaa istaraatiijiyadii la rabay inay hirgasho casharkeena intaasuu ku egyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu